قدوا عطشر باي باي هاي ديران اي سودو موقال كان على شرقره صاحب بدن هلا غارسيو وحايله جوجا سعيسين با غوليسين با walaalkiis degmada xamar weyne joogna kawaanka maleyga agtiisa waaye wadada maanta isku qabanay soo dhaw Saciid anigu hay aad baad mahadsantahay waxaan aad ugu mahadsantahay waxaan soo dhaweynayaa DUR MADIA waxaan joogaa maanta kawaanka maleyga xamar weyne kawaanka maleyga xamar weyne oo xamar meeyi marka waan ku cusbahay deegaanka waxaan soo boqday maanta xarunta kalaanka xamar weyne malay baan soo doontay malay baan ka gadanayay waxaan ayaga jooga magaalada ma sha Allah aad iyo aad baan ugu wada dhacay macnaha sida maanta ganacsiga kalluunka uu kala socdo aadan maartay joogeeda aan ugu soo dhaweynaa magaalada waran ebel intaad ka timid awal waxaan ka mid gobolada Puntland aad ka imaad guuleysiin boolaalatiin dadka qaar waxa laga yaabaa inay magaca Saciisiin ba maxaa loogu bixi maxaa leedahay Saciisiin ba waa naynaastii waka magaca reality waa Saciid naynaasina waa Simba waa gartay adiga marka maanta kawaanka imaadno ujeedka aad halkan ku timid maxaa naaga sharxi kartaa halkan waxaan u imid maleygan iyo joogan aan ogaado iyo cimilada magaalada inaan arko iyo bilicdeeda waa gartay dalxiis inuu yimid waanahay dalxiis ahaan waa weyn dadka qaar Muqdisho wax kale ka aaminsan maxaa leedahay wallahi horta koo Muqdisho markaa imaanay hadda in Djibouti ay la socda oo walaalkaya waa san Djibouti ka yimid hadda inka hadda markuu imaanay waxa uu ka aaminsan Muqdisho inay tahay macnaha nin god galay madow oo ku dhacay waa gartay Muqdisho magaalada caasimadaha Soomaaliya ka mid tahay caasimadaha caalamka sida u dhisan yihiin baa u dhisan tahay ma sha Allah baa magaalo bilcdeed aad u qurux badan tahay aad iyo aad baan u dhacay kulliba waa gartay waan soo dhaweynay dalxiis u timid ma soo booqatay goobaha dalxiiska magaalada ka bada dhowr goobood baan tagay Dogson Enterprise waxa ay ardayda ku wargelinaysaa inay furan tahay isdiiwaangelinta YOS exam imtixaanka YOS ardaygii baasa wuxuu heli doonaa 80% scholarship semesterkii wax ka yar $120 isdiiwaangelinta 30% waa discount hadda ka soo gaar 20 Agoos way xirmaysaa isdiiwaangelinta ama la xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda beerta maxaa la yiraahdaa beerta nabadda beerta banaadir daar salaam dhowrka beerood baan tagay daar salaam markaad tagtay ka waran xayawaanada maxaa ka xasuusata xayawaankii ugu weyn waxaan arkay jibisada la yiraahdo waa naxday marka waa xayawaankii ugu weyn aan ka naxay ma sha Allah marka horumar bay sameynaysaa bilic magaalada sameynaysaa adiga hadda ma jeclaaleen inaad taariikh maadaama لكن هو يريا هذا ما أمسنت إنه وراء رباين هنا لكن أسوي رباين ملاين أي ما أمسن هذا حق اللي بحيد كور اللي بحنا أي ما قد التلحيس كان حتى من يعيشها إلى إيش فوات كيس وحد يعيشها كولا ذاك هنا أي أي واقف دعوة إن جاري وطن وغير بودلان غير جيبوتي waxay kamid yihiin dadka ku xiran DUR MADIA dadka qaar waxay naga aaminsan dadka ka waalo adaga hadda waa noo timid makaawal maya way soo dhaweyseen waa gartay dadka sidaas aaminsan maxaaleeda waxaan leeyahay magaaladan Soomaalidu waa isku mid meel kasta joogto waa gartay midabkaas aan dadka isku mid ka dhigay iyo dhiigga iyo dhalashada waxaan leeyahay dadka waxaad ka aaminsantiin ka noqdo Soomaalidu isku mid weeye dalkiina imaado dhisto horumar sameeyo marka asxaabta waa u jeedaan reer Puntland waa Djibouti waa tag Djibouti Puntland Hargeysa oka waagan maxaad farin u diray qurba joogto ugu dambeyn qurba joogto waxaan leeyahay dalka dhisa dalku nabad weeye dhibaato ma jiro si xorriyad la ku marnaa aad baan loo soo dhaweeyay reer koonfur waa dad aad u qalbi jilicsan waa dad aad u fiican waa dad ma artay nasabad la weeye ma boqolkiiba boqol aad baan kula dhacay nolosha hilibka qowa ma dhadhamis may laakiin malay waa dhadhamis inaad dhadhamis ma jecesha mubo hadii la siiyo
وكا قبا دي لا سي ولا دمني ولا وردا يا الله باش سو جيديا باش ديدين ادهدان ها ديدين هي وجعشا ها جعلا شعبك ما لهدا شعبك waxaan leeyahay xamar waxaan leeyahay aad baad ma santii 100% durdur media in badan waan daawanay daawasho waxaan wali aad ku xiran baanahay waliba subscribe ka like ta share ka waliba waxaan dadka siiyanahay been ma sheegay ay soo dhawow shacabkaada la hadal aad waan dhawahay durdur media waa meesha ugu haboon oo hadda maanta wax kasta laga daawan karo maaha meel dadka waasha waa meel intaqana dhalinyarada lagu bogaadiyo oo mataqana waxay ku dinsa uga jawaabi kartid meeshaan waa caasimadda dalka Soomaaliya waa magaalada Muqdisho shacabkana waxa leeyahay wadankiinu waa nabad magaaladiinu waa nabad ma aaminsan in dadka laga waalo ma aaminsan dad laga waalo waayo qof bili aadana oo lixda xaastamta aqligiisu taamiya in laga waalo ma aaminsan mana laga waali karo boqolada kalena mana ka waali karo waa tahay daawade waa dhalinyar taageerayaal ah reer Jabuuti iyo sidoo kale Puntland durdur ayaa nagala socotaan hala kala kiciyo waa ato shar kaamirada gaduudo saxiisanba bye bye Dr. Samir Maxamed oo ah doctorka xarunta Fayo Clinic waxa uu ka dabaynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wajiga ambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaalo ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhammaan cudurradaasi maqaarka ayaa waxa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaalo si qaldan hadda waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqdo ama gaar xarunta Muqdisho ee ku taala isgooska dabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba ka daaweynayso cudurrada maqaarka iyadoo doctorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ay ku leeyihiin